الله وبركاته. waxaan ka hadlayaa meeshaan aan u imid anigoo fuusi maxamed cilmiya caqabado ka jira oo badan muhiimaduna ay tahay meeshaan abaaraha saameeyay abaarahaasoo biyo la'aantu aad ay noo caqabad nagu noqotay adag biyo la'aantaasoo ay kaliftay inaan lahayn ceelal biyood inaan lahayn gaadiid fiican oo noo keena gaadiidku hadduu keenana inay biyuhu ay aad nooga fog yihiin caqabadahaas baan u nimid darteed oo ka hadlaynaa waa aad bay dhibaato noogu haysaa 3 sano abaaraha saameeyay dadku waa sigtay dunyadu waa baqtiday darbiyaday baqti ku yihiin iyagoo oo dhowri waayay biyaha inta lagu maqan yahay gaarigiina awood u waayay inta badan bulshadu waa badan tahay in badan baan biyaha awoodi karin gaariga lagu soo qaadayo aan kharash iyo tabar waxba haysan in badan baa intay sugaysay gaariga intuu tarihi waayay ceelashii sugaysay baqtiday caqabadaas aad u badan baanu ka cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa ceelasha xaggooda aad noogu xun birkada yar biyo noogu jiraan inta naqaabay joogaan haddii ay jidaal noqoto lama helo biyo khatar baa lagu jiraa waxaan u baahanahay oo codsanaynaa dhammaan caalamka inta waxa weeye samafalka inta waxa weeye dawladda dhammaan waxaan uga cabanaynaa oo ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ceel la'aanta barkadaha dawraya markii abaare ay dhacdo inay naga soo gaaraan oo ceelal noo sameeyaan riig noo sameeyaan baan uga cabanaynaa oo uga baahanahay oo ka codsanaynaa ما هو السلام يا ودادة يا برشاد ماشي دوار ما أنا أفريق طبعاً كي بقول لكم السلام يا سلام كبعد أنا وفتون عبد الرحمن علي فارح الله يدوه وقصة هاللي مقالة ورقدود واحد كعبان يا بيلان شرتا وميل عن عيل هاي براجة سريع لبصنا بعبارتها من هاي ستي هذا الصنو بيا ملاهين براجة بيا ملاهين بيا ميل فوق ميل لو بيا لو ما تبتشرين سيد على اللي قد براجو هذا براجو بيا واقلين قيب تقلين وبربرسان تهاي واشجبان تهاي قيب نمجلين ضيعي كنا الحماية وحاسس كتير براجو واشجبان كوا قلين واشجبان هذا مركز سيد ميل عن العيل هاي لقمان وران كرو waxaan u baahanahay biceel iyo triig wixii triig naloo heli karo nalku caawin karo abaaruhu saameyntaas ay keeneen abaaraha badan oo soo noqnoqday dhowr sano soo noqnoqday oo dadku sakarku galay sida la aligeed ayaan u caabanaynaa raxiim salaam alaykum raxmatullahi barakaatu magacaygu xaamid maxamed faarax waxaan joognaa warguduud runtii warguduud sida aragtaan hooyooyinka ay hadlayaan biyo la'aanta laga hadlayaa waa mid sanadkii hadda jilaal baa la soo dhaafay hadda alxamdulillah roob baa da'ay laakiin waa wax soo laalaabta magaalo weyn oo aan biyo lahayn oo ceel lahayn Puntland muddo badan bay ballanqaad sameynaysa deegaanka inay ka sameynayso ceel ilaa haddana ceelka waa la sugayaa marka baahida biyo la'aanta jirta sanadkii la soo dhaafay waa tan hooyooyinku hadda ay ka hadleen annaguna aan ka warqabnay waxaan rabnaa marka dawladda Puntland oo iminka hadda doorasho qabanaysa inay doorashada biyaha ka hormariso oo horta oonka xal loo raadiyo warguduud ceel bay u baahan tahay meesha ugu sokayso biyo laga soo qaadi karaa waa gudub jiraan ama waa yoombays labadaba wadooyinkoodu way xun yihiin oo gaarigu waqti dheer bay ku qaadanaysaa inuu biyo ka keeno marka codsiga dadka bulshada oo annaguna aan dareen ahaan aaminsanahay oo ka muuqata warguduud waxa weeye biyo la'aan baahsan baa jirta magaalo biyo asal u ah bulshada baa deegaanka degan dhul balaaran xoolo balaaran ay joogaan oo xoolo dhaqato ah oo aan biyo lahayn marka dadka samafalayaasha ee bulshada wax tara iyo dawladaba waxaan ka codsanaynaa anagoo deegaankii afkiis ku hadlayna oo dadkii deegaankan aragna baahida jirta in warguduud ceel loo helo oo ceelkaas sidii magaaladaas ceel u heli lahayd dawladdu ay number 1 doorkeeda qaadato annaguna waxaan diyaar u nahay deegaan ahaan dawladdu haday la timaado qorshe ceel wixii ka dhiman inaan dhamaystirno oo kala shaqeyno